tobankan caado iska ilaali. dabcan dad badan waxay isbedel u samayn waayeen. waxaa jira waxyaabo dib u celinaya kana hortaagan inay gaaraan horumarka la taaban karo. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا. halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa 10 waxyaabood oo aad u baahan tahay inaad naftaada ka joojisid. midda koobaad oo u baahan inaad naftaada ka joojisid waa jooji inaad dayacdo salaadaha iyo guud ahaanba cibaadada Alle subxaanahu wa ta'aala. maalin kasta 5 waqti waxaynu maqlaynaa u kaalaya guusha, u kaalaya liibaanta. haddii aadan ka jawaabin isla markiiba 5 salaadood waqtiyadooda aadan ku tukan, ma jiro waqti kale ee aad maarayn doonto. markastana qofku waxa uu هذا مشغول aan haddana waxba u qabsoomaynin. haddaba ku xirnow abuurihii guusha si uu isaguna kuu siiyo guusha. qodobka labaad ee u baahan inaad naftaada ka joojisid, jooji inaad naftaada been u sheegtid, khiyaalina aad u akhrisid oo aad ku malaawaashid. noloshan waxay horumartaa keliya markaan fursadaha ka faa'iidaysano. fursadda ugu horeysa uguna daran aan qaadan karno waa in nafteena daacad u noqonaa. qodobka saddexaad, jooji inaad waqti ku lumiso asxaabta xun. maalinka qiyaamo waxaana loo weydiin doonaa 2 qaab oo kala ah: maxaad waqtigaaga ku soo bixisay? miyaad ka faa'iidaysatay mise waad soo lumisay? midda labaad dhalinyaronimadaadii xagee ku soo bixisay? maxaad ku soo dhameysay? haddaba dhalinyaronimadu waa qayb ka mid ah waqtiga Soomaha. haddaba ilaali waqtigaaga, waa muhiim. noloshu way gaaban tahay inaad ku lumiso dad farxadda ka qaada. kala gara noocyada asxaabta ee aad leedahay. ogowna saaxiibka xun kaliya gadaal buu ku dhigaaye. jooji inaad ka cararto dhibaatadaada. wajah dhibaatada ilaa aad ka xaliso. ma aha wax sahlan, mana jiro qof adduunkan dhib la'aan ah. xaqiiqdii waxaana soo maray murugo, kadeed, kufid iyo dhaawac. nolosha ayaa sidaa ah. nolosha ayaaba sidaa iska ah. waxaa lagaa rabaa inaad wajahdo, aad aqbasho, aadna ka feejignaato, aadna xaliso. tani waa waxa kaa dhigaya qofka aad rabto inaad noqoto. jooji inaad ceebaha dadka kala raadiso kadibna aad samayso cambaarayn. xaqiiqdii tani waxay kaa hor istaagaysaa inaad dantaada mashquul ku noqoto, horumarna aad samayso. jooji inaad xaasid noqoto. xaasidnimadu waa inaad xisaabiso waxyaabo qof kale Alle subxaanahu wa ta'aala ku manaystay aadna uga xumaato inta aad taada xisaabin lahayd. jooji caajiska wahsiga, inaad iska fadhido nafta oo aad siiso firaaqo badan oo ay isaga fadhida aad siiso. inaad ku fikirto hawl kuu taala qabashadeeda isla hadda waxa ay ku horseedaysaa burbur iyo fasahaad. ku mashquuli naftaada isla shaqada. samee wax akhris, wax faa'iidayso. jooji cabsida inaad khalad samayso. inaad wax samayso oo aad qalado waxa ay 10 jeer ka fiican tahay inaadan waxba samayn. guul kasta waxay leedahay fashil badan, fashil kastana guul ayuu ku gaarsiiyaa ugu dambeyntii. jooji isku dayga inaad farxad iibsato ama dadka kale ka raadiso. haddii aadan ku faraxsanayn qofka aad tahay iyo waxa aad haysato, ma jirto cid kale oo farxad ku siin karta iyo waxyaabo qaali ah oo aad farxadda ku keeni karo. waxyaabo qaali ah ee farxad ku keeni kara waa inaad deganaan iyo qanaaco u abuurataa naftaada. markaa ayaad cid kale siin kartaa. jooji inaad ku noolaato xusuusta wixii aad soo martay. wixii horay u dhacay waa taariikh, weligoodna ma soo noqonayaan. walwalka iyo xusuustoodana waxay kaa qaadayaan farxadda maanta. ku noolow farxad iyo reereyn. waad u qalantahay inaad noloshan ka gaarto meel aad u sareysa, inaad u rixlaysato gaarista farxadahaaga. waxaan kuu rajaynayaa inaad maanta laga bilaabo aad noloshaada ka dhigi doonto mid farxad lagaaga akhristo, mid farxad laga aqristo. boosas kasta oo aad ka fariisato boosaska dunidan dusheeda ku yaala. wax u baro sida adiga oo wax badan noolaan doona. una noolow sida inaad tahay qof beri dhimanaya oo kale. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا
فاغسل معاصي.